Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaalidii meeshay marayso iyo waxay maanta sida ka dhabta ah. Waxaan rabaa inaan ka hadlo hadaan u cusubtiin subscribe-ka, like-ta noo saara, comment-iga hoos ku soo qora. Hadaan ku socdo Soomaalidii 91dii dagaaladii la soo maray waxaan u qabay inay wax ku baratay oo ay ka gudbi doonto maadaama Soomaaliya dowlad goboleedyo laga sameeyay, dowlad ku meel gaar la soo maray, dowlad hadda la aqoonsan yahay aanu haysano. Waxaan u qabay wixii hore dagaaladii in la ilaaway, dadkii dabka shidi jirayna badankoodiiba ay dhinteen. Laakiinse hadda iyo waxaa la soo nooleeyay qabiilkii in la isku dilo. Waad ogeydeen Soomaaliyay gabdho baa waxay dileen nin habar gidira. Ninkaas waxaa la yidhi wuu waalnaa, adigu way dileen. Gabdhahaas waxay sameeyeen ma fiicneen, dadkanu kumay farxin. Dee dhiigna way galeenoo dhiig muslim had saasay ku qabaan. Hawshaas markii laga gudbay oo taas dadkii ka xumaadeen, ayagana habar gidirtay wiil yara oo leelkasa ah oo 12 jira oo aan qaangaarin oo ay abti u yihiin oo Saleebaanku ay dhaleen bay ayaguna dileen. Labada gacmood iyo labada lugoodba way ka jareen. Abti waa lagu badbaadi jiray, hadda abti waxaaba jiraba Allahumma najina inuu ku gogoosto raba. Wiilkii yarka ahaa waa laga xumaaday, dadkii way ka xumaadeen, waan ka xumaanay. Allah u naxariisto, saqiir buu ahaa. Wiilkii wuu dhintay. Hadda gabdhihii habar gidir waxay hayaan oo qabteen oo haystaan gabar leelkasa ah. Gabar leelkasa bay qabteen, waa ku shamuumeen. Bayla fiirsha fiidiyowgan. horta anu soo wii daaroolkan calkuma ilaahay igu ogiyaa toobi markaan ka soo hawiya u gala hawiya la joogay weligay yaallayna gadiska kala maar qofkiisa ma arag weligay yaallahay qolada kale يقدمون كنا صغير بعد شيء ولا لو مقلي قفت مركو اقلي ليه ما تشوق ولا تشوق هذه يا قبل يا قريب لكن هبو ما هنا وربا لو صدر ودا ها waxay soo direen alla jecel wadata oo leelkasa waanagu sanka yeelanana kulli anaga naqaana ma fahanteen hada control nidin baa dadku walwala ku soo jaabaysa waanka qashiga noo soo daraara inta lagu controlado soo Waka Soomaali saasa ka dhaba. Aqligii buu dhamaaday, digada ayuu noqday. Waxay leedahay gabadhaas hadlayso, waxay leedahay waa naag leelkasoo naloo soo diray. Anaga marya jeexan noo soo xirxiratay. Anaga naqaana si aan ka yeelayno. Waxaan dhihi lahaa anaga noo soo diray markaa leedihiin mooyse Soomaali ahayn, mooysan imaan karin galguduud, mooyse xataa ayadoo habaab ah aysan soo geli karin. Mooyada ogeyn galmudug dowladda ay sheegaysaan inay ka tirsan yihiin dad daarooda oo marixaana inay idinla leeyihiin mooyada ogeyn.
dhulku in la wada dego miyidan ogeyn. haddii nin laydinka dilay oo idinkuna wiil abtuu tihiin haddaad disheen ma intaa ku ekaataan? maxay tahay haddana gabar baan dilaynaa? waa aad iyo aad ceeb u weyn. odayaasha meelay jiraan garamayno. waxaa marka qaarkood sidaa dadku odayaashu may ka hadlaan, may dhahaan gabdho waa edeb darantiina, gabadha ka fuqa. xataa hal gabar oo dhehaysa gabadha ka leexda ma jirto. waa isku maskax baa leedahay dadkao dhan. marka hadda gabadha dishaan oo gabdhahaas ay gabadha dilaan, haddana leelkasii markay helaan gabar miskiin oo waxba aan galabsan, meel maraysa markay helaan, hadday dhahaan iyagana waa dilaynaa, waa cuqubo. markaan waxaan olaa gabadha haliska sii daayo. Soomaaliya wuxuu roobka uga dii waayaa, waxay abaarta u noqotaa waa dhiigga muslimka oo la xalaalsaday. marka waxaan dhihi lahaa odayaasha dadkan ha soo kala dhexgalaan, hana kala ceshaan. waxaan dhihi lahaa reer walbaba odayaashooda fidmada ha isku dayaan inay denshaan. marka fidmadana awalba waxay kasoo bilaabatay niman reer guuraayo leelkase la degay oo yiri aanu agtiina xoolaha daaqsano, oo haye ay dhaheen baa waxa la arkay ayagoo barkad qodanayo, meeshii ka qodanaya. barkadka kama qodan kartaan, waxaasaa la isku qabtay, dagaalku halkaas ka bilaabmay. marka hadda Soomaali markii la isloo Soomaali maanta heshiinaysaa, haddana balaaya kala tuuraysa. marka waxaan dhihi lahaa fidmada hala densho. gabdhuhuna ayagaa la raba inay isku hiiliyaan. gabdho intay isqabsadaan inay isdilaan aad bay u xuntahay, oo qabiil isku dilaan aad bay u xuntahay. gabadhaasna iska sii daayo. saasaan oran lahaa. daawadayaal idinkuna waxay idinla tahay commentiga hoos kusoo qora. daawashadiina waa ku mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.